بدلوا عذابك هجلين عادل كاجرة shaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa ka tacsiyay garida Allah u naxariistay abwaan badal jaamac xirsi oo ka hubeysan ay ku dileen 18 bishan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalkeena Soomaaliya kulanka ducada iyo baroordiiqda kulansaday ee ka dhacay hoolka Jigjiga Mall ee ku yaala magaalada Minneapolis ayaa waxaa soo qabanqaabiyay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku bohobay ururka SDN ee fadhigiisu yahay gobolka Minnesota iyadoo ay ka soo qayb galeen bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan dadkii ka soo qayb galay ayaa waxa ay ka sheekayeen wanaagii iyo sida ay Soomaalnimada ugu weyneed Allah u raxmade abwaan badal jaamac xirsi iyagoo ku dheeraaday sida uu bulshada Soomaaliyeed ugu tusaaleyn jiray dawladnimada waxa ay tahay iyo hanaanka ugu wanaagsan ee ummadda Soomaaliyeed horumarkeedu ku jiro waxaan ku hadlayaa magaca SDN waxaan cambaaraynaynaa falkii foosho xumaa ee wuxuushnimada ahaa ee lagu dilay abwaankii qaranka Soomaaliyeed abwaan badal jaamac xirsi waxaan isugu nimid tacsida abwaan badal jaamac xirsi oo abwaan Soomaaliyeed oday Soomaaliyeed nabadoon Soomaaliyeed halgamaa Soomaaliyeed والله وكنح ما أقان لكن أنت هذا الشيء أبوانك جبيري سئي هذا الذي سئي وحى وكقبت صوماليا ستوسع ولا صعدة إله أبوانك ونحرس إله الجنة كوراب شهيد إنه يهان آمن سنة إله شهادة كأقبل لبوي كهر وحى تعزيزها سكري حنون كذا إذا كدعي مقالات بدوين قرح كدعي xilli baad aamino oo wada xasuusano qof bulshada aad ugu qiimo badan xaafid quraanada ahayd haddana maxay inoo xigay bedel oo ahaa caalim ah ahludiin ah daaci ah abqari ah Soomaali ah Soomaalinimadiisa aan la gaban wanaaga iyo ummadda wanaaga fariida ummadiisa farayay maxay ahayd wax joogto ah maalin kasta daily macna bulletin maalin kasta wax uu sameeyay ahayd inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un waxaan isugu imaanay oo aan meeshan u nimid maanta waxa weeyaan dilkii abwaankii weynaa ee Soomaaliyeed inaan u ducayno wixii Ilaahay kale ina waafajiyana aan kaga hadalno marka koobaad waxaan leeyahay Soomaali oo dhan baan uga tacsiyeenayaa marka labaad waxaan leeyahay eheladii iyo caa'iladii uu ka baxay iyo caruurtiisii iyo islaamihiisii iyo qaraabadiisii baan u tacsiyeenaynaa geerida abwaanku ma aha kaliyaata mid ku kooban xamar iyo Soomaaliya laakiin waa geeri meel kasta Soomaali uu joogo runtii oo aad uga naxay dhibaatada ina haysatana waxa weeye haddaynu Soomaali nahay dadka haldoorka inoo ah inaynu ilaashano ayay ahayd ee ma ahayn inaynu masaajid iyo agaarkiisa ku dhaxdilna ma ahayn taasina waa dareen xun oo runtii inaga hadaynahay Soomaali inagu jira waxaan halkan runtii uga tacsiyeenayaa dhammaan Soomaali waxaan u tacsiyeenayaa qoyskii iyo eheladii uu ka geeriyooday abwaan badal waxaan leeyahay Ilaahay maaragtay isagana jannadiisii jannada firdawsaha ka waraabiyo ehelkana samari iimaan iyo Soomaali oo dhamaanteen Allah inaga siiyo yaalladii samankii ragii ku dhaacmo kamid ahaa muddo badan wuxuu ahaa nin u soo shaqeeyay qaranka Soomaaliyeed hadee markii dawladdii burburtayna qof waliba wixii markaa asaga jahadiisa uu ku aadanayd buu qabtay asagu wuxuu ahaa nin nabadoonnimo iyo wacyigelin iyo waani iyo wacdi dadka Soomaaliyeed meel jooga la dhex jooga abwaan bedel hortiisna waa loo dhintay gadaashiisna waa la dhiman doonaa waxayna tusaysaa abwaan bedel dhimashadiisu inay soo dhawaatay nabadii inay soo dhawaatay halgankii inuu guuleystay tusaysaa nin qaran buu ahaa halgamaa buu ahaa nin wuxuu ahaa waddanka u soo shaqeeyey ahaa wuxuu ahaa nin ummadda wacyigeliya innaga waxa waajib inagu ah inaynu u tacsiyeyno u ducayno aytaamtii iyo agoontiina in laga warhayo waay dadka yaga loo dilaa maxaa wax garadka loo dilaa abwaan nabadoon badal Allah u naxariisto Allah subhanahu wa ta'ala Allah u naxariisto ilaahay zumratu saalihiin dadku jecel yahay Allah ku daro وبدل سيدا لغا شيكييبا اما تاريخ سيدا لغا شيكييبا wuxuu ahaa
murabbi buu ahaa maxaan ku dhahaa ama nin tarbiyeeya bulshada Soomaaliyeed sanooyinkii u dambeeyay wuxuu carbiyay ummadda Soomaaliyeed wuxuu barayay waxay ahayd qarannimada Soomaaliyeed iyo sida ummadda Soomaaliyeed maxaan ku dhahdaa ay u qaadan lahayd dawladnimada kala dambeynta iyo saraynta sharciga dilka haldoorka Soomaaliyeed iyo khaarijinta qorsheysan ee dalkeena ka dhacay ayaamihii dambe ayaa waxa uu dareen ku abuuray bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan waxayna jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota fariin u direen bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan iyagoo ka codsaday inay u midoobaan kuwa xalaaleystay dhiigooda Abdaakiin Cabdi Ismaaciil warbaahinta qaranka Minnesota Mareykanka